habeen wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyaha wadaag qodobada aad dhageysan doontaana waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo tababar u furay gudiyada doorashooyinka dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo soo saartay digniino ku aadan kowda Luulyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay safiirka Kenya ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo fasaxday shaqaalaha sabab la xiriira kowda Luulyo baarlamaanka Galmudug oo maanta ansixiyay sharciga kalluumaysiga Galmudug madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland oo shir gudoominayay kulan looga hadlayay adeeg bixinta deegaanada Puntland dawladda Soomaaliya oo heshiis la saxiixatay banka adduunka laamaha amniga gacanta ku soo dhigay rag ka geystay dhac magaalada Muqdisho Mareykanka oo shaaciyay ciidamadiisa uu dib ugu celinayo Soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dad badan oo ku dhintay kuleel xoogan oo ka jira dalka Kanada wadajirku waa wada noolaashuhu waa inaan la kala maarminna waa inay wax naga wada dhaxeeyaan wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga wadaag FM wadaag radio wadaag FM waa soddonka bisha 6 sanadka 2021 habeenimo Arbacaha Khamiisna ay soo galayso kusoo dhawaada warka raadiyaha wadaag oo dhameystiran ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa tababar u furay gudiyada doorashooyinka dalka Maxamed Cismaan Nuur ayaa warkan ku eegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa tababar u furay gudiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dawlad goboleed tababarkan ayaa socon doona muddo 4 cisho ah ra'iisul wasaare Rooble ayaa gudiyada kula dardaarmay inay si daahfuran oo cadaalad u maamulaan howlaha doorashooyinka ee loo igmaday xubnaha gudiyada doorashooyinka ayaa dib ugu laaban doona deegaanada dawlad goboleedyada si loo bilaabo howlaha doorashooyinka halka qaarna ay magaalada Muqdisho ka bilaabi doonaan doorashada labada aqal ee baarlamaanka xildhibaanada ka soo galaya gobolada waqooyi ee loo yaqaan Somaliland iyo kuwa banaadiriga ah ee ka soo galaya gobolka Banaadir waxaan rabaa idinkan inaan hadda maanta idin cadeeyo shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya inaan u cadeeyo siyaasiyiinta aan u cadeeyo qof kasto danaynayo Soomaaliya doorashadeedana aan u cadeeyo September 17 agreementigeeda iyo 27 May waa lama taabtaan aasaaska waa labadii magaalo maamul goboleed kasta uu soo gudbiyay insha Allah sideedii ku dhacaysa waxa suuqa laga sheegay waxba kama jiraan labada magaalo haday ahaan lahayd South West Baydhabo Barawe ka dhacaysa Hirshabelle haday ahaan lahayd Jowhar iyo Beledweyne ka dhacaysa Puntland haday ahaan lahayd Boosaaso iyo Garowe ka dhacaysa Galmudug haday ahaan lahayd Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb Jubbaland waa Kismaayo iyo Galbaharey ergada waa 101 halna lagu madarayo halna laga ma dhigayo haduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo marka qalbigeena u sheega idinka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan la wareejinay horteeda yaalan gadaasheeda ma yaalan saawla socod ani kulli taba dhaxdan soo xirtay inaan musharax noqon haddaan musharax noqdo waxaan u diidaa idin sheegaya rootiga inaan idin qaybinayo haddaan musharax noqdo waxaan ka dhaxraadinaya Soomaaliya haddaan rootigaas wax ka dhaxraadiyo ama interesskaas aan wax ka dhaxraadiyana waa fil garoobaya saadarteed ama fursadaha oo tahiin aan haysto ayaa haddana u tanaasulay dalkan idinkan waxa la idinka rabaa inaad ummadda uga faa'iideysaan u tanaasul ummaddiina waxaan macno lahayn aan meel lagu gaareen wallahi aan meel lagu gaareen ha ka dhaxraadin magacna ilaahay idin siinayo kii gafana hadda masiibada ku dhacayso taa ula socdo hor uma soconayo marka waa idin soo duceynaya hadalka intiisa badan waa dhahay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay soo saartay digniin ku aadan kowda Luulyo Cabdiwahaab Xuseen Cali ayaa warkan ku eegaya saacadaha soo socda koonfurta bartamaha dalka Soomaaliya waa guud ahaan Soomaaliya waxa looga dabaaldegayaa kowda Luulyo waxaana xilligan soo baxday digniin aad u culus waxaana jeedinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa digniin ka soo saaray rasaasta lagu dabaaldego kowda Luulyo wuxuuna sheegay in askarigi isku daya in rasaas uu ku dabaaldego maxkamadda la hor keeni doono sharcigana la marsiin doono wuxuuna sheegay digniintan in ay tahay mid aan la dhayalsan karin
digniin ummadda Soomaaliyeed ee u dabaaldegaysa maalintii xorriyadda iyo midowga Soomaaliyeed oo qiimo weyn shacabka ugu fadhida waxaa mamnuuc ah in rasaas lagu argagixiyo oo dhexdooda lagu rido ama dhibaato ay u geysato sidii dhacday 26 Juun habeennimadii waxaa dhacday rasaastii macna darada loo riday in dad shacab ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen oo waxba galabsan sidaas darteed digniin waxaan u jeedinaynaa ciidamada qalabka sida cid kasto oo rasaas sidaas oo kale u rida iyadoo ku marmarsiyoonaysa in ay dabaaldega u ridayso dadna ay wax ku noqdaan in sharciga lala tiigsan doono ciqaabta u qalantana ay heli doonaan waxaan ka digayaa mar kale in rasaas macna darra la rido ama rasaas nolol iyadoo lagu marmarsiyoonayo xorriyadda u dabaaldegaynaa waad mahadsantihiin dhammaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay safiirka Kenya ee Soomaaliya Nuruddin Xasan Ibraahin ayaa warkan ku eegaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaabilay safiirka dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya Lucas Tombo oo ay ka wada hadleen hagaajinta iyo xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal ee dariska Danjira Lucas ayaa waxa uu sheegay in uu ka shaqeynayo wanaajinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya kulankan dhaxmaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale safiirka dowladda Kenya ayaa waxa uu imaanayaa xilli dowladda Kenya ay dadaal xoogan ay ku bixinayso sidii dib ugu soo celin lahayd xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay fasaxday shaqaalaha sabab la xiriira kowda Luuliya. Maxamed Cismaan Nuur ayaa warkan ku eegaya. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya xilgaarsiinta ayaa markii hore ugu hambalyeysay bulshada Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda oo weli loo guda jiro. Qoraal ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa waxa lagu sheegay in la fasaxay dhammaan shaqaalaha rayidka ee hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka maalinta Khamiista oo ku beegan kowda Luuliyo. Talaabadan ayaa waxa lagu sheegay inay tahay mid loogu dabaaldegayo munaasabadda kowda Luuliyo oo ah markii gobolada Koonfureed ay ka xoroobeen gumeystii Talyaaniga iyo midowgii labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi. Warqad ka soo baxday Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa u qornay sida tan ku socota dhammaan hay'adaha dawladda Federaalka ee Soomaaliya ujeedo fasax maalinta xorriyadda gobolada Koonfureed iyo midowgii labada gobol ee kowda Luuliyo 2022 Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada waxay ugu hambalyeynaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed maalinta xorriyadda gobolada Koonfureed iyo midowgii labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi. Waxay wasaaraddu ku wargelinaysaa dhammaan shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha gaarka ah inay biri oo Khamiisa kuna aadan kowda Luuliyo 2022 maalin farxadeed oo ah nasasho ku ciid wanaagsan kuna dabaaldega farxad ayaa lagu soo gabagabay warqadda ka soo baxday Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada. Maalinta biri oo Khamiisa ayaa waxay ku beegan tahay kowda bisha Luuliyo sanadka 2022 waxaana ay ku beegan tahay maalintii gobolada Koonfureed ay ka xoroobeen gumeystii Talyaaniga iyo midowgii labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi iyadoo munaasabado dabaaldega ay ka dhici doonaan guud ahaan gobolada dalka iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Baarlamaanka Galmudug ayaa maanta ansixiyay sharciga kalluumaysiga Galmudug. Cabdiwahaab Xuseen Cali ayaa warkan ku eegaya. Baarlamaanka Galmudug ayaa maanta ansixiyay sharciga kalluumaysiga Galmudug oo wasaaradda kalluumaysiga ay u soo gudbisay kulanka maanta. Baarlamaanka Galmudug waxa furay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal wuxuuna ka hadlay ajandaha kulankan iyo ansixintiisa. ajandaha maanta noo yaalo waa akhrinta saddexaad iyo ansixinta hindisa sharciyeedkii kalluumaysiga Galmudug. Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug kalfadhigiisa labaad fadhigiisa 19aad oo maantay oo taariikhdu tahay 30 bisha Juun 2021 u fadhiistay ajandaha akhrinta saddexaad iyo ansixinta hindisa sharciyeedka kalluumaysiga dowlad goboleedka Galmudug waxay ku ansixiyeen ogol konton diidmo eber aamus 2 xildhibaan. sidaas ayuu sharciga kalluumaysiga dowlad goboleedka Galmudug ansax ku yahay. ansixinta dabadeed waxaa kulanka ka hadlay wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Daahir Xuseen wuxuuna kaga mahad celiyay baarlamaanka Galmudug ansixinta maanta ay ansixiyeen sharciga kalluumaysiga Galmudug. deegaanka aan rabnay inaan ka shaqeyno waxaa ka jira mukulaal madow baa ka jirta doomahii wada waxaa jira kii kale oo hadii ay ku run yahay nimankii yaraa oo ayaguna meer taagan waxaa jira nimankii kale oo wadanka joogi jiray shaqo badan oo amni ku saabsan oo anaga kaliya aan ku saabsanayn baa jira adinka
haddaad tihiin xildhibaanadii galmudug adinka ugu awood badan deegaanadiina ka soo jeeda inaad nagala shaqaysaan baan rabnaa haddii ilaahay idmo in arrintaasi wacyigelin badan iyo shaqo badan baan diyaar u nahay inaan howlgalnaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa sida sharafta iyo wanaagga badan aad nagala shaqayseen sharcigan aad noogu ansixiseen wasalaamu calaykum madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa shir gudoominaya kulan looga hadlayay adeeg bixinta maamulka puntland nuurdiin xasan ibraahin ayaa warkan ku eegaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane axmed cilmi cusmaan karaash ayaa maanta shir gudoomiyey shirka maamul baahinta puntland kaasoo ka qabsoomay qasriga madaxtooyada maamulka puntland shirka maamul baahinta puntland waxaa ka qaybgalay wasiirada bahawadaagta kula mashruuca horumarinta deegaanada maamulka puntland iyo sidoo kale xubno ka tirsan adeegyada bulshada ee dowladda hoose ee maamulka puntland kulanka waxaa looga hadlay qorshaha maamul baahinta iyo mashruuca horumarinta degmooyinka maamulka puntland iyadoo la hubinayo adeegyada dowladda ay u qabato bulshada maamulkaasi wasiirka caafimaadka ee maamulka puntland oo kulanka ka hadla ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulankaasi looga hadlay hoolka shirarka ee madaxtooyada dowladda puntland waxaa lagu qabtay shir uu jeergaraynayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaash shirkaas oo ahaa heer wasiir waxaa lagaga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa nidaamka maamul daadejinta ee puntland marka lasoo gaabiyo loo yaqaano GBLG-ga qaybta adeeg bixinta shirkaas runtii waxaa diiradda lagu saaray sidii loo hubin lahaa nidaamkaas maamul daadejinta halkaad warkaasi kala socotaan waa raadiyaha wadaag markaana akhbaaraadka dibadda dad tiro badan ayaa ku dhintay wadanka Canada ka gadaal markii kuleel aan la qiyaasi karin uu ku kordhay heerkulka booliiska Vancouver ayaa sheegay in ay jiraan dad si degdeg ah u dhintay kuwaasi oo gaaraya ilaa 130 qof tan iyo Jimcihii inta badan dadka dhintay waa kuwo waayeela ah ama cudurro xun qaba sidoo kale kuleel xad dhaaf ah oo jira ayaa qayb weyn ka ah dhimashada dadka tirada badan shalay ayuu dalka Canada diiwaan geliyay taariikhda heerkulkii ugu sarreeyay oo gaaray 49.5 sentikareed saddexdii maalmood ee isxigxigtay magaalada Layton ee gobolka British Columbia toddobaadkii hore iyo intii ka horeysaba heerkulka dalka Canada ayaan ka sare marin 45 sentikareed hirarka kuleelka oo cadaadiskiisu aad u sarreeyay ayaa ka imaanaya dhanka waqooyi galbeed ee Canada iyo Mareykanka khubarada ayaa sheegay in isbeddelka cimilada la rajeynayo inay sare u qaado dhacdooyinka jawiga iyo hirarka kuleelka isbedbedelaya guud ahaan warka aad kala socoteen raadiyaha wadaag wanaga